Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaam dhamaan walaalay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waa mar kale walaashina Xabsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta haddii anagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar hadaa hore noola joogto aad u mahadsan tahay please videoyaasha aan soo geliyo qofkii ay quseeyaan u dira insha allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida ugu fudud ama sida ku ogaan kartid cunugaaga inuu tuunji gaaray oo tuunjigaa ku bari kartid oo xafaayad uu uga gudbi lahaay waagi horeeto iyo hadda isku mid maahan oo waqtigu wuu isbedelay hadeertan xafaayad ayaa la wada bartay oo dadka dhan xafaayad ay ilmaha u wada xirtaan marka cunuga markii xafaayada u xiraysid wuu iska kaadiyaa wuu iska xaaraa oo ma ogo intuu yar yahana control ma qabo oo yacni uu ku ogaan karo kaadidiisa iyo saxaradiisa laakiin mar hadduu soo weynaado cunugu wuxuu baranayaa sida loo xajiyo saxarada iyo kaadida marka waxaa jiro waqti ilmaha la baro tuunjiga iyo calaamadaha ku ogaan karto cunugaaga inuu diyaar u yahay inuu tuunjiga barto tuunjiga soo yar waa la bari karaa cunuga dhib ma lahan laakiin haddii aad bartid xataa mar walba ilaalis iyo dabajoog ayuu kaa rabaya ma fahanteen soo marka muhiimadda waxaa waaye marka inaa cunugaaga aa ogaan kartid xilliga ugu fiican aad bari kartid barnaamijkan khaasatan wuxuu aad u quseeyaa hooyooyinka yaryar oo khibradda aan haysanin ama hooyada cusub oo haddaba kow oo cunugeeda bilaaw uu ku yahay oo barbarada uu yahay hooyooyinka hore wax u dhaleen ayaga waaba caadi oo wax badan ay fahamsan yihiin casharada waxay ka bartaanba cunugooda koowaad kan koowaad markaa ku rarrafaadid kuwa kaleeto waxawaaye waa iskala qabsanaysaa marka cunugasee ku ogaan kartaa horta marka hore in uu tuunji uu gaaray ama tuunjiga oo aad bari karta xilligeeda ee tahay badanaa ilmaha waxaa lagu bilaabaa sanad iyo bar ilaa 2 sano inta u dhexeyso haddii aad ku aragto cunugaaga calaamadahan waxaad dareemaysaa cunugaaga inuu diyaar u yahay in aad tuunjiga bartid cunugaaga waa inuu si fiican u fadhiisan karo cunugaaga waa inuu ku fahmi karo markii aad la hadashid oo magaciisa yaqaano oo waraafadiisa istaag bax kaale uu yaqaano oo yacni instructionka gaagaaban oo si fiican u fahmayo cunugaaga haddii uu bilaabo inuu naco xafaayadda oo iska furo markasto macnaheedu waxaa waaye xafaayadda inuu nacay oo waqtigii laga gudbi lahaa la gaaray haddii cunugaaga xafaayadda yacni qalalan tahay waqti dheer ay qalalan tahay saacad 2 saac oo aragtid uusan ku kaadin ama ku saxaroonin waxaad dareemi kartaa cunugan xafaayadda inuu ka gudbi karo oo time oo hadhow tuunji aad ku saartid aad heli kartid cunugaaga hadduu saxarada la dhuunto ama uu la xishoodo oo markuu saxaroonayo dadka iska qariyo it means wuxuu diyaar u yahay inaad ka bedeshid xafaayadda oo tuunjiya u bedeshid ama musqusha ba aad geysid cunugaaga haddii aad aragtid maxaa la dhahayay inuu ku tuso calaamado uu rabo inuu saxaroodo camal yacni saxaro markay heeso oo calaamado oo kutuso wejiga uu kaduudo camal like isoo isriixa aragtid aad dareemtid yacni inuu saxaroon rabo camal waa dareemi kartaa kaadiya heesa camal lacala ilmaha dhaqsa qaar waxaa jira luqadda dhaqso bartaan oo sida loola hadlay ku xiran tahay oo guriga qaabka cunuga loola dhaqmay ku xiran tahay cunug dhaqsa hadalka barta hadduu yahay kaadi ay heeso ama uu dhaho ama uu dabada uu qabsado kaadi inay heeso uu kuu muujiyo waxay macno u tahay cunugaaga diyaar inuu u yahay marka intaas oo calaamada haddaa ogaatid cunugaaga sidee marka tuunjiga ugu bilaabi kartaa marka koowaad waa inaad horta xafaayadda ka furtid waa inaad waqti aad u haysid oo hooyo shaqeynaysa iyo hooyo guri joogtana isku mid ma ahan hooyada shaqeynaysa badanaa ilmaheeda time badan uma hesho oo waxaa fiican guriga qof mar walba la joogo inuu baro si oo loo helo time isku xigo consistency waa inaad lahaatid yacni joogteyn waa inaad lahaatid wax aad joogteyn lahaynna maba la baran karo soo maahan marka cunugaaga waa inaad waqti u heshid oo aad la joogi kartid soo marka koowaad cunuga waa inaad tuunji usoo gadatid tuunji markaa usoo gadid maxaa la dhahayay aad ku fariisisid oo ilmo kaleeto lacala ka weyn hadday jireen aad tusisid haddii oo maxaa la dhahayay oo musqusha markaa adi aad galaysa aad tusisid musqul in la galo oo cunuga uu fahmo in oo yacni kaadi iyo saxarada meel loogu talagalay ay jiraan inaad buumo usoo gadid ama kastuumo wiilasha buumo gabdhahana kastuumaha usoo gadid oo xafaayadda ka bedesha aa u gelisid cunuga marka qaar xataa oo asoo futo qaawan aa sii daysid si aa wax yar kadib tuunjiga u saari kartid ma fahantee laakiin futo qaawanaashada badan haddii bartaan ilmaha dhow dhar makaa yeelaya marka waxaa fiican buumo inaa u gelisid waqti cunuga markaa tuunjiga saaraysa inaad dhiiligelis aada qasbin xoog dhan aada u sheeganin mar oo xafaayadiis cabaar ee qalaneed oo aad ka furtay aa isdhahay saacada camalkaadi way heesaa inaad kaadi saartid inaad tuunjiga aad saartid
maxaa la dhahaa inaa farxad tustid aad dhiirigelisid waa maasha allah hadduu kaadiyo camal u sacbi macnihii dhiirigelin badan marka xigta waxaa waaye inaadan isku welwelinin ilmaha isku mid ma ahan oo qof walba waqti ayuu qaataa adigana waqti inaad siisaa lagaa rabaa maanta inaad ku bilaawdo haddana beri ka dhaaftid maahan waa inaad joogto xiriir aa u samaysid at least ugu yaraan 1 week aa cunugaas aa ku joogtaysid tunjiga saar bas hadhow waa baranaa marka uu la qabsanaya wax walba nolosha rutiin waaye cunugaa rutiinka hadduu fahmo maxaa la dhahayay caadi uu la qabsanaya tunjiga hadhow waxaa arkaysaa isagooba oo tagayo keligiisbu oo ku fariisanayo soo kaadinayo marka saxaro qabato hooyo saxaro ay hayso ama kaadi ay hayso inuu ku dhaho marka insha allah wax walba process ay leeyihiin ha ku degdegin ha isbuubsiinin cunuga waqti sii naftaada waqti sii cunuga stresska ka ilaali adi naftirkaaga stresska iska ilaali oo aayar ilmaha wax u bartaan qof oo immediately wax baranayo ma jiro wax walba time ayay leeyihiin marka hana isku welwelinin ilmahana isku mid maahan cunuga dhaqso baranayo oo dhaqsaba kaadiis xijisan karo oo tunjiga leh maasha allah si fiican kugu fariisanayo ilmana waqti ayay ku qaadataa ilaa 3 sano ilmaha trainingka waa lagu wadaa oo marmarka qaar accidents ka dhacayo kaadida way ka fakanaya ama saxara ka fakanayso xanaaqin ha ku qeylinin because cunuga mar walba xafaayad la iskaga xaara iskaga bartay oo tunji ma yaqaan Soomahan marka ada accidents iskaga ilaaliso guriga haduu roogag iyo wax ku fifidsan yahay roogaha kala laab inta xafaayad baraysid maxaa la dhahayay fadhiga camal ka xiro hadii aad isleedahay uu kaaga kaadinaya rooga duu guryaha qolalka ku yaal ka qaado bas aayarkaas insha Allah wayna baranayaan wax walba waqti iyo juhdi iyo dadaal ay u baahan yihiin iyo dulqaad ay u baahan yihiin ilmahaaga ilmo kalena weligaa ha isku barbar dhigin cunugaaga cunug kale marnaba isku mid ma ahan marka hooyo walba koriin ilmaha la daala dhacaysa ilaaha u fududay insha Allah hooyo walba oo rajeynaysa ama gabar walba oo rajeynaysa awlaadna ilaahay awlaad saalixiin wanaagsan ha ku irsaaqo waxaan rajeynayaa inaad videoga like badan saartiin videoga markaa fiirsatiin like-tiina laga arko insha Allah ilaa dhamaadka inaad gaartiin meeshaas ka arkaa like badan saar insha Allah soo dhawaada waa mahadsantiin jazakumullahu khayr salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh